madaxweynaha Alatriya aaday iyo sababta uu aaday iyo maxaa ka soo bixi kara horta waxaan rabnaa hal inaan isla meel dhigno heshiiskii saddex gooseedka ahaa oo ma garanaysaa ma ahayn heshiis oo ma ahayn maaragtay wax kama jiraan heshiis jiru ahaa heshiis lagu heshiiyey buu ahaa heshiis reer galbeedka iyo NGO-yada iyo waxa u shaqeeya iyo waxa ma garanaysaa oo ay ka wada kacaan buu ahaa ka wada istaageen oo muujiyay runtii Afrika inay xoroobayso sababtoo haddii wadamada Afrika isku wada xirmaan oo dhaqaalahoodu isku xirmo waxa imaanaysa inay trade dhexdooda ka dhaco oo wax kala gataan oo siyaasadda ku heshiiyaan oo cidii markaas si qaldan isku dayda inay u soo gacan galisay inay la dagaalamaan marka heshiiskaasi ma ahan heshiis ma garanaysaa wax ku oola oo dad badan oo Afrikaan u hanqal taageen oo miradhalkiisa la sugayay buu ahaa waana heshiis kalifay dad Soomaali ah oo badan oo u arkay Ethiopia cadawgooda koobaad inay tahay inay bedelaan ujeedadii iyo cadawtinimadii oo hayeen oo runtii ay dhaheen war Ethiopia haday isbedesho anaga xabad wax uga qaadi weyn Ethiopia amaan ma garanaysaa siyaasadda ay ku wanaagsan tahay marka xasan runtii dad badan oo Soomaali ah baa jeclaa inuu foreign policy ku shaqeeyo laakiin waxa ma garanaysaa oo wax kasta cadaanayaan hadda golaha wasiirada baan ka ogaan karnaa meesha wadada uu maray yani hadii la keeno dadkii shalayto heshiiska ku dhaganaa dadkii ma garanaysaa dhibaatada iyo kala qaybinta iyo qabiiliga ku campaign gareynaya hadii meesha la keeno ninkan la yiraahdo Xamsana keeno dargi halkaan ahay oo Jubaland laga soo xawlo oo Maxamed Khaliif iyo rag la mid ah oo meesha keeno waxa cadaanaysa runtii inaysan jirinin waxa loo aamusan yahay oo ma garanaysaa dad badan oo hadda nabadii nolol ahaa ay u aaminsan leeyihiin madaxweynuhu waxa laga yaabaa inuu maaragtay maadaama ay madaxweynihiina sarkaan ra'iisul wasaaraha la magacaabayna ay sarkaan madaxweynihii hore runtii inay siyaasadda waji kala yeelato oo Kenya kaligeeda ay shaqeyn Ethiopia iyo Eritrea in la xirto ay ku wanaagsan tahay marka adigu waxa noqotaba golahan wasiiradan ka fahmi karnaa wax kasta noogu cadaan doonaan laakiin waxaan rabaa in heshiiskaas uu yahay heshiis jira oo in la isla ogaado oo runtii wax ku oola oo rajo badan laga qabay oo ma garanaysaa reer galbeedku xataa aad iyo aad uga kacaan marka haddii ay noqoto in xasana dadkiisii keensada Xamsana dadkiisii keensada meesha kolley waa la isku qabsan doonaa oo buuq waa dhalan doonaa fakarka waa qabaa also waxa imaanaysa dana Soomaaliyeed laga shaqeynaa in wadanku uu gali doono habkii ma garanaysaa xukuumadii hore Xasan Sheekh Maxamed sida ahayd in loo isticmaalo habkii mooriyaanimada ahaa oo corruption-ku uu hareeyay wadanka oo meel kasta laga galay oo ma garanaysaa wasiiradana dhihine governorkii loo dhiibi jiray oo bangiga dhexe Central Bank of Somalia loo dhiibi jiray isaga cararta shaqada 3 weeks gudahooda ay dhacday meeshan shaqa kama socotay waxa ka socda dhac anigana wajiga madaxayga iyo qalankayga lagu madu dhacay umada abrar yusra abrar ay kaga carari jirtay shaqada marka insha Allah ilaahay kulli wadanka waa u ducaynaynaa ilaahay wadanka hagaajiyo do you know ninkii wax isku suubiyay in chief laga taliyaha security-ga Xamza laga dhigay Guutaale Kamal Guutaale waa la socdaa ninkii oo pressure gareynay waa lagu pressure gareeyay waxa la yiri waa inaad tagtaa saxiixid oo heshiiska contract-ga Shulman inaad saxiixid weeye haddana waxa la lacagtu saysa bangiga Central Bank as ugu dhacay waa inaad daba tagtaa account ka furtaa marka article-ka waa aqriyay arrinta waa la socday markay dhacaysana aad baan la socday wasiiradana markii ma garanaysaa governorka hore bangigana aad baan isna maaragtay waa shakhsi aan qadariyo shakhsi runtii waqti sidaas oo kala wadanka uu dantiisa u isticmaal karo ka faa'iidi kara banaanka ka istaagay weeyo yiri maya marka aad iyo aad baan la socdaa marka dadkii hadii meesha la keenayo runtii waxa sugnaaba ma garanaysaa ma jiraan oo waxa weeye inta waxa rabtaa daawada la yiri Soomaaliya waxa ku baamaada waxa ka badin weysa la yeelaa marka waxa noqonaysaa waxa ka badin weyna inaan yeelno marka rajadaas bal intaasan ka war sugaynaa haduu Alatriya tago ma garanaysaa oo afweerka la kulmo ciidamada arko diilaha socda arko waxa laga yaabaa kulli maartay wax waa isbedeli kara qofka Ilaahay waa bedeli kara ma laga yaabaa ina aniga faham marka adiga marka farm ku godan tahay oo aniga Xasan aqaana
sirtiisa iyo wixiisa waxaa jirta article ee qortay naag oo very very intelligent professorada oo xalayta aan soo saaray kor oo from Chicago waxay qortay Chicago Tribune naag cadaan naag waxa way very smart I think in intelligence ahaan jirta CIA waxaas marka xasan ay ku tilmaamtay nin oo maxaan ku raahdaa kaarar badan oo tiisa kaliya aysan dhaafsiisnayn wax walba and basically he is only himself. I mean, she was warning everybody. Why that this guy here hasn't character smoked. He just only for himself. It's what is in for him. It's not for the country. It's not for the partneriska. Wadan ma ahan danka loo leeyahay waa shakhsi asaga himself only. Wixii asaga dantiisa markuu uu ka arko buu suubiyaa loyalty-na ma la yiraahday oo haba yaraatee ma waa aaminsana waxaas. It's just like and show me the money. Wax walba wuxuu ka fiiriyaa and green. It comes down to money. maya madaxweynaha dee corruptionkiisii hore wax qarsoon maaha warsan wax wadanka laga wada ogyahay dadka Soomaaliyeed la ogyihiin meel kasta laga ogaa aragga laga qoray siyaasiyiintu ay ka hadleen xildhibaanadu ay ka hadleen waa madaxweynaha lagu tilmaamay ayax kelmadda leeyahay suuqa siyaasadda soo gasho waa madaxweynaha ka dambeeyay way marka madaxweynaha corruptionkiisu wax maahan ma garanaysaa hadda if foreign policy advisor oo advice madaxweynaha Mareykanka iyo US government iyo senatarada ay ka dhageystaan oo journal weyn oo Chicago Tribune article ku soo qoray oo ku tilmaamaysa madaxweynaha Soomaaliya basically took that has the impact that has an impact case-kii baa cad looyaradii baa xiran lacagtii frozen ka ahayd oo la qaatay looyaradii case-ka lagu qaadaa cad madaxweynaha wixiisu waa cad yihiin laakiin dad baa waxa ka rajo qabaan war madaxweynuhu haddii uu wuxuu qaadan kara hore u qaatay maanta ama magac iyo laga ka tagaa anigu shakhsiyan hadaa i weydiisay anigu ma qabo sababtoo ay fafaalaha socdaan u jeedaa waxa socdaan u jeedaa laakiin su'aashu waxay ku godan tahay madaxweynihii Turkigu tagay haddana Elchayu tagay ama wax ka imaadaan madaxweynuhu waxa arkay madaxweynahaas arkeen oo wada sheekay miirin dheer wada galaan ra'iisul wasaarahana way arkeen marka madmadowgaasaa jira madmadowgaas marka wax golaha wasiiradan baa naga xigay inaan aragno golaha wasiiradan ka arkarnaa dadka la keenay dad loyal ah oo sidii shalayta dadka isla naqaanay ay yimaadaan warku waa cad yahay laakiin madaxweynaha warkiisu waa cad yahay waa in corruption qabyaalad wax kasta ma garanaysaa ku saloobay way wax cusub ma ahan Xasan Sheekh waa daawanay mucaaradnimadiisaan daawanay xukuumaddiisii baan soo aragnay dadka ilaa hadda wadaan aragnaa ilaa hadda dad Soomaalidu u bogto wala laaya gabadhii ma garanaysaa magaca hodan ba ilaa hadda qof Soomaalidu ay qalbigooda ku qababo la magacaabay oo xukuumadda horna ka tirsanay ay fargelin ku waday in awoodooda awood Soomaali ee leedahay la tusay madmadow oo iyo maxaa la xiisad kacsanaan ay ku xirantaa mustaqbalkii maxaa lahaa xiriirkii wanaagsanaa oo Masar Soomaali ka dhixin jiray wax oo farmaajo bilaabay ma ahayn de asagana danaheena kama dhax arkin anaga Masar si hadii loo fiiriyo oo maanta laakiin ganacsi Soomaaliyeed iyo dad waxbarasho u tagaan oo midaas jaamacadaha Carabta maaragtay qosaysa oo heshiiskii loola galay wax muhiim ah sameeyay laakiin wadan ahaan diblomaasi ahaan si markii loo fiiriyo aad maaragtay maxaa lahaa uma wada shaqeyno Masar iyo Soomaaliya markii loo taasna waxay ku suurtagelinaysaa yani oo maaragtay aad ka fahmi kartaa xitaa waxaa jira maqal dheer oo qoray wargeys la yiraahdo Middle East Monitor wargeys la yiraahdo oo qoray aad ugu hadlo u faalooday xiriirka diblomaasiyadeed ee soo jireenka ahaa ilaa adiga 1906 xukuumadaha ka jiray oo isbedelka waxa keenay marka Muqdisho xukuumadaha ka dhici jiray Qaahirana markaas waxa waaye heshiis siyaasadeed oo tiirsanan oo waxay leedahay Soomaaliya marka taas waxay keenaysaa marka hoggaan xumadii ka jiri jirtay ragii dalkan soo hogaamiyay qof maaragtay qof meeshu uu dantiis ka arki jiray uu wanaajin jiray
marka ma jirin nin dadkii shacabka Soomaaliyeed ummadii u tuli jirayo shisheeyahana jacayska dhigi jirayo tanta aniga aleena ka samaysan jirnay waxay ayaga enigliina u sameyn jirnay marka waxa waaye garab istaagyadii ee Soomaaliya u sameeynaysay Masar waxa waaye waxaa sheegi jiray waxaa kamid ahaa wargeyska sidoo uu sheegay wuxuu jiray waxaa kamid ahaa heshiiskii nabadda oo waxaa jiray heshiis loo Camp David oo Egypt la gashay Israa'iil 1938 oo Soomaaliya maaragtay kulug lahayd oo in Masar ay heshiiskaas ka garab siiso marka dhaawac soo gaaray xiriirka Soomaaliya Masar wuxuu u muuqdaa in uu soo afjari karo cilaaqaadkan u dhaxeeyo heshiiskan cilaaqaadkan u dhaxeeyo dagaalkan saddex geesoodka ah Suudaan Masar iyo Itoobiya waxa waaye marka hadda waxay is leedahay koox oo adiga heshiis kula oo maaragtay aadal kala wareegay saas darteeda marka waxa waaye ugu xumeynaysa saldhigga la sheegay ugu sameynsanaysa waliba waxa la sheegay dhul weyn in la siin doono oo marka waa iska ogtahay dhul weyn maanta dhul iska dhaaf Masar haday soo degto meeshan safaarad ka badan ay ka soo degto Soomaaliya waxa waaye Itoobiya meesha ugu xumeeyay gaaraysa marka aniga si hadii loo fiiriyo marka waxa waaye labada wadan aniga diblomaasi ahaan maanta Itoobiya noo wanaagsan markii oo la fiiriyo Soomaaliya waxay si cad u sheegtay in ay taageersan tahay majority madaxda soo marayba ay taageersan Itoobiya marka laga hadlayo muranka biyaha iyo webiga Nile oo isku haystaan Masar iyo sheegeen Suudaan iyo dawladda Masar dawladda Itoobiya marka waxa waaye waxaas way jiraan waraadin kartaa xiriir waqti inta la iga soo jireen ma la joogo hadda waqti waxa waaye oo hadda waxa la sii joogaaba aan aad u sii kala xumaan lahayn sii kala su'aal lahayn waliba xilli labadan dawlad oo murunkooda oo soo ku hayo waxyaabo badan oo isku haystaan oo ayaga haddana u dhaxeenin hadda maanta Masar waxay noola dagaashan tahay wax anaga nagaal dhaxeeyo amaga aan ka sameeynin ma jirto waxay taagan tahay kaliya Itoobiya xiriirka loo jiro Masar Itoobiya markii loo fiirinayo waxa dirisna la xuduud aan leenahay waa Itoobiya marka maanta dal xuduud kululay dal adiga dal kale kaaga sii dhaxeeyo oo waliba ku soo dhaweyn marka waa arki kartaa faa'iidada iyo khasaarada ku jirto xarwa ina ka hadlo safarka madaxweyne Xasan Sheekh oo ku baxay Turkiga walaalayaal horta waxa waaye madaxweynuhu waxa la arki jiray markuu warbaahinta qaranka uu ku daabaco safarkiisa uu shaaciyo ama ujeedada maxaa la salka ku haysto safarkiisa uu sheego waxa waaye waqti cayiman inay tahay anaga uma baranin madaxweyne been noo sheegayo tanna waxa waaye markii labaad oo ay dhacayso حلها ولين ما أركن مدحوين صومري صومالي قبل سوقات مدحوينه كوري حسن شق محمد عبد الله في ماجو إن وليس أصلا سفر شيء من هبلا يكو هذا أو حال دقيقة قدر سلم أركن إن قرم مايو سفرنا على شيء هذانا إن دقيقة ده إيو إن مع المحل وصل درسنا شعب كوني جوينيسا هذه كوني جوينيسا أنا لفتر كي هو كني جوا وايو aniga tan shacabka markii loo fiiriyo waxa waaye madaxweynihii dalkii ku leeyahay meel heblayan aadayna intaasaan ku maqnaanayna wixii markuu ku sheegay wixii markii aad tirsatid maalmihii aad qabsatid maalin ku sii dirsan adi fikir macnaha maxaa la waxa qalbiga ka buuxsamay yani waxyaala maaragtay aan caadi ahayn qofkii high intellectual IQ-giisu yahay waa fahmi karaa sababta waxa waaye maxaa la sameynaa horta ajandaha in la shaaciyo ajandii waa la shaaciyay marka maxaa waqtigan loogu daray okay waqti hadii lagu daray oo u baahday madaxweynaha waqti u baahday oo u baahnaan karaa oo ku darsan karaa diba hadana loo soo wadaaga waa inay hadlaan even hadii beeski wargeyski oo maxaa la warbaahinta qaranka lagu daawicin madaxtooyada hashay afayeenkiisa hashay beeju leeyahay live soo galo oo wariyaal qaran watay ama hashaygan ay hashaaciyaan shacabku qanacaya markaas wayna fahmaan ujeedada jirto laakiin safar laba maalmood saddex maalmood lagu sheegay in maaragtay hadana la dhaho waqti lagu darsaday sheegin ujeedada kale maaragtay sameynaysan ma jirto iskaashiga madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan aad uga hadlay wuxuu yiri iskaashiga dhaqaalaha Turkiga iyo Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay waxay gaartay dhahay 300 milyan ay gaartay dhahay sanadkii hore oo dawladda farmaajo hogaaminay afkiisu ka sheegay maaragtay khudbada waa daawacan tahay oo beejkooda waxa galaysa oo madaxtooyada oo ishag dalka Turkiga
turkiga ayadoo qoraal xitaa waa soo dhigeen warqad marka waxa waaye 2013 waxay ahayd 1 milyan ahayd fiiriya 1 milyan ahayd sanadkii dawladii farmaajada maxay gaartay 363 milyan oo dhaqaalaha gaaray iskaashiga oo aan kula jirnay marka hadda garan mayno waxa waaye halkii ay maaragtay ay gaarayso marka u bayaaniyo macnaha madaxweynaha wuxuu tusay in uu maaragtay yani xiriir wanaagsan aysan yeelan doonin ninka la fadhiyo oo xasan sheekh marka waa iska dareemi kartaan waxa kale aad ila yaab badneed ninka la yiraahdo Mahad Salaad Xuseen Macalin oo raadinaya in ay la kulmaan madaxa sirdoonka ama wardoonka qaranka ee Turkiga taasna ma u suurtagelin hadaa ogtihiin iyo hadii kaleba waxa waaye qoliyo waxay u dirsadeen oo maxaa la ninkaas u dirsadeen madaxa oo sirdoonka dalkaas haysto in ay la kulmaan rabeen labada nin oo Mahad Salaad iyo Xuseen Macalin laakiin waxay u sheegeen ragii oo dirsadeen jawaab soo celiyo waxay yiraahdeen warnay adiga wax kama warqabtidee ninkaani bariga dhaxo dhan caalamka kalbar adduunka Mareykanka la sheegay wuxuu ka dambeeyaa madaxa sirdoonka ee Turkiga ka dambeeya waa nin aan caadi ahayn waxa waa la raadiyay waxa cid hadda maanta sheey karto madaxweynaha Turkiga ahaan mogi oo dhihi karto dalkaas xitaa wasiiradooda ragga ka hoos shaqeey dhihi karto ninkaani dalku ku sugan yahay guri Heblaayo degan cid dhihi karto haba yaratay dunida ma jirto iska dhaaf dalkiisa nin caalamka sidaas uga dambeeyaan kalbar oo war xitaa ayaga iyo ay ka qaadanay ay ka walwalaan caalamkii qaar ka baqa wadamada qaar ee waxay leeyihiin waxaan waa wadkiina iska dhaaf ninkaas ma raadiyaan inay la kulmaan xitaa iska dhaaf marka nin noocaas ah xirwan niman geel muqdisho ku qalaayo oo dagaal iyo qabiil beelad sameynay in ay la kulmaan ayagoo noocaas ay yihiin oo dina terrorist yihiin waa arin maartay fajaceeda leh amniga caasimadana aad uga soo daraya maalmihii ugu dambeeyay waxa waaye xaaladda aad u sii xumaanaysa amni hada afhayeenka waxa hadlay booliska oo sheegay in maaragtay xaaladda amniga aad faraha u baxday marka dawladii madaxweynaha Farmaajo wax amni ka hadlaayo amniga xumaaday qof algeeri sidaan la cid haysan ma jirin